بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة دمانتين سو دواada meel walba aad joogtaan mowduuca maanta markaad eegtaan waxaa laga yaabaa inuu cajiib idinla noqdo maxaa lagaa qariyay waxa is leedahay maxaa lagaa qariyay waxa kaa maqan ee lagaa qariyay muxuu yahay sidee looga guuleystaa suuqyada sarifka suuqyada sarifka waxaan ognahay inay competition aad kula jirtid iyaguna ay kula jiraan competition mid walba wuxuu isku dayayaa inuu guuleysto adiguna waxaa isku dayaysaa inaad suuqyada sarifka ka guuleysatid suuquna wuxuu isku dayayaa inuu adiga kaa guuleysto haddaba sidee ayaa looga guuleystaa suuqyada sarifka maxaa lagaa qariyay marka saaxiibayaal waxaan ka wadaa wax badan ayaad aragtay dad badan oo Soomaaliyeed oo YouTube lay ah ama casharo YouTube ka bixinaya ama Facebook ka bixinaya ama Telegram ka bixinaya oo kule forex waa meel lacag laga sameeyo forex waa meel hal maalin looga taajiro forex sidana laga sameeyo ama kuwa kule lacagtaada noo dhiibo lacag baan kugu shaqeynaynaa muddo inta la eg oo adigiina forex oo dhan aad ka fahantay wax inta qof lacag loogu dhiibto oo kugu shaqeeyo dad badan oo ina ka mid ah sidaas ay aaminsan yihiin sababtoo ah marka aan cashar soo dhigo ama aan live train soo dhigo ama aan Telegram keena video yar oo kooban aan soo dhigo waxaan arkaa dad badan oo commentiga kale waa laygu dhacay lacag baa layga qaatay waa kullu go'ay waxyaalo noocaas ah qofka noocaas markaad u fiirsatid maxaa ka niyad jabiyay forex ama sarifka lacagaha maxaa ka niyad jabiyay binary and digital option oo aynu inagu ka trade gareyno lacag ka sameeyno maxaa ka niyad jabiyay waxa ka niyad jabiyay qof kale oo Soomaali ah oo been u sheegay oo forex oo dhan uga dhaadhiciyay inuu yahay meel intuu lacagtiisa keeno lacag loogu shaqeynayo ka bacdina hadhow uu faa'iido helayo laakiin shaqada forex-ka ee lacagta laga sameeyaa aan sida qofka loogu sheegay ahayn sida kale ataawi ka duwanta waxaan rabaa marka qaabka adigoo aan cid ku dhicin adigoo aan cid lacagtaada jeebka ku shuban adigoo aan qof kale been kuu sheegin adigoo aan faa'iido qeyr macquul ah lagu oran maalin ama laba ayaa ku helaysaa sida forex looga shaqeysto looga guuleysto suuqa sarifka lacagna looga sameeyo malihi dadka lacagaha ka qaado oo dhan been bay dadka u sheegaan oo way dhici kartaa qof forex trader ama forex lacag ka sameeya ama binary and digital option lacag ka sameeya ama suuqyada kale oo laga trade gareeyo lacag ka sameeya intuu lacag ka qaaday intuu lacag qof ka qaaday intuu ugu shaqeeyay goorta xaqiisii u celiyay way jiraan waana badan yihiin sidoo kale way badan yihiin dadka tuugada ah ee beenloowayaasha ee dadka beenta u sheega ee dadka dhaca ee iyagu u dhaxeeya forex-ka iyo dadkay u dhaxeeyaan waxay ka dhex ganacsadaan dadka doonaya inay forex lacag ka sameeyaan oo hanku ku jiro iyo forex-ka laftigiisa ayay u dhaxeeyaan oo jidgooyay bartanka dhigteenoo dadka ayay lacag ka arursadaan shaqadoodu marka waa saas iyaga haddaba maxaa lagaa qariyay sidee ayaa looga guuleystaa suuqyada sarifka waxa lagaa qariyay oo dhinaca muhiimka ee dhinaca fiican ee dhinaca guusha ah ee dhinaca wax qabsiga iyo horumarka ee lagaa qariyay ee aan ahayn in lacag qof u dhibatid muxuu yahay sidee se looga guuleystaa suuqyada sarifka talaabooyinkaas oo dhan baan rabnaa inaan isla marno marka for the beginner baa maanta tahay forex baa rabtaa inaad lacag ka sameyso IQ option ama binary and digital option baa rabtaa inaad lacag ka sameyso wadooyinka aad rabtid inaad martid min bilow ilaa dhammaad ayaynu isla maraynaa ee dhegeyso muuqaalka daawo intaynaan u gudbin muuqaalka haddaba saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa in aad muuqaalka share gareysaan channel-kanna casharo badan oo sida online lacag looga sameeyo sida binary and digital lacag looga sameeyo ku saabsan baan soo gelinaa inaad subscribe saarato si aan casharada kuu dhaafin kuwii horena muhiim bay ahaayeen inaad soo daawato sidoo kale like-tu muhiim bay noo tahay dad kale oo fara badan oo adiga kula mid ay u gaartana inaad muuqaalka like inoo saarto waa mahadsan tahay waxa ugu horeeya marka ee aad u baahan tahay in aad forex marka aad doonaysid iyo binary and digital option inaad lacag ka sameyso waa waxbarasho
min bidaaya ilaa nihaaya waxa u baahan tahay in aad wax baratid oo suuqan aad baratid ilaa tallaabada A to Z, ilaa tallaabada koowaad ilaa tallaabada u dambeysa in aad waxbarasho ku jirtid oo baratid. waxbarashadu marka waa dariiqa loo maro si aad ugu guulaysato suuqyada sarifka. waddo kale oo furan ee suuqan loo maro si aad uga guulaysato aan waxbarasho ahayn ma jirto. maxaa baranaysaa marka? kow, qodobka ugu horreeya aan ka hadlayno maanta waxa weeye fikrad guud inaad ka hesho suuqa sarifka. horta fikrad guud inaad ka haysato suuqa sarifka. number 1, intaadan lacag soo qaadan oo qof u dhiiban, intaadan lacag soo qaadan oo akaadamiyad aadan iska diiwaangelin oo suuqii aadan baran, waxaa u baahan tahay fikrad guud inaad ka hesho suuqyada sarifka oo aad ogaato suuqani muxuu yahay, yaa maamula, yaa ka shaqaysta, see lacagta loo dhigtaa, sidee lacagta loogala baxaa. wax aasoo dhan waa inaad fikrad guud ka haysataa. yaa adiga kula trade garaynaya oo lacagta dadka adiga ka mid tahay maahe dadka kale trade garaynaya maxay yihiin? inaad waxaasoo dhan fikrad guud ka haysatid. suuqan hore dad uga taajiray oo lacag ka sameeyey ma jiraan, dad ku khasaaray ma jiraan. ma iskaan baa horta asal ahaantiisa mise waa wax laga trade garayn karo oo asal ah oo sax ah oo legit ah ma yahay? fikraddaa guud marka hore waa inaad maskaxdaada ka soo dhaadhicisaa. talabaad waxa weeye barashada dhaqaaqyada suuqa. ta saddexaadna waxa weeye barashada wararka, inaad la socoto dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka. waa sharixi doonaa. ta afraadna waxa weeye inaad barato barashada inaad haysato lacagtaada. in aad haysato lacagtaada barashay kaaga baahan tahay markaad joogtid sarifka lacagaha. markaad trader tahay wax sarifaysid, in aad lacagtaada maamulato oo gacanta ku haysato waxay kaaga baahan tahay maxay? barasho. fikradda guud maxay tahay marka? fikradda guudi maxay tahay? tani waxay kuu saamaxaysaa baan niri in aad garanayso waxa aad ka shaqaynayso asalkiisa. waxan aad ka shaqaynayso aad gacanta ku qabanayso asalkiisa inaad ogaatid. xaaraan iyo xalaal waxa uu yahayna inaad ogaatid oo soo xaqiijisid. yaa kugula jira oo suuqa kugula kombatit garaynaya oo kugula tartamayana inaad soo xaqiijisid. sidee lacagtaada ku helaysaa, yaadse u dhiibanaysaa, iyo kuwo kale oo badan. fikradda guud waxay u baahan tahay inaad waxyaalahaasoo dhan ka soo heshid. fikrad guud. kow, inaad garanayso waxa aan ka shaqaysanayso oo lacagta ka samaynayso waxa uu yahay asal ahaan, xilliguu asaasmay, xilligii lasoo bilaabay, yaa trade garayn jiray oo lacag ka samayn jiray. talabaad, xaaraan mise xalaal oo muhiim ah. qofku wax kasta uu gelayo ama uu rabo inuu lacag ka sameeyo inuu ogaado ma xaaraan baa mise waa xalaal. iyadana waa very important inaad soo ogaatid. talabaad, yaa kugula jira suuqa kan oo adiga maahane yaa kugula trade garaynaya, yaa la tartamaysaa, khibradoodu intay la eg tahay, adiga khibradaad, waxaasoo dhan inaad soo xaqiijisid waa kow oo fikrad ka soo qaadatid. sidee lacagtaada ku helaysaa? lacag baa shaqaysanaysaa, online baa lacag ka samaynaysaa, broker bay lacagtaada kugu jirtaa. hadhow lacagta aad faa'iido sidee ku helaysaa? lacagta yaad u dhiibanaysaa? adiga iyo forex ama adiga iyo binary and digital option yaa idiin dhaxaynaya oo dulaal idiin noqonaya lacagta u dhiibanaysaa, iyo kuwo kale oo badan. waxyaalahaasoo dhan baa saaxiibayaal fikrad guud ka qaadanaysaa. fikradda guud markaa qaadatid oo soo buuxsantid oo money information aad sidatid oo aan lagu khaldi karin, beena laguu sheegi karin, oo aad garanaysid waddada aad maraysid iyo waddada aad ka leexanaysid, waxaad imanaysaa halkan ayaad imanaysaa. waxaa baranaysaa dhaqaaqyada suuqa. shumacyada suuqa ayaa loo yaqaanaa dhaqaaqyada suuqa. English ahaana waxaa lagu dhahaa candle sticks ayaa lagu dhahaa, ama terminology-ga suuqa marka aan joogno waxaa loo yaqaanaa candle sticks ayaa loo yaqaanaa. candle stick-gaas waxa weeye marka aad suuqa aragto oo suuqa eegto waxaa arkaysaa shumacyo cagaar ah oo kor u socda iyo shumacyo guduuda ama casaana oo hoos u socda. shumacyada marka ama dhaqaaqyada suuqa uu samaynayo ayaad baranaysaa oo si deebla u baranaysaa. iyagaa taxliilinaysaa, lafaguraysaa, faaqidaysaa. kandhal walba gaar baa u baranaysaa. kandhalada laftigooda magacyo fara badan leh oo midba micno ka turjumaya, midba jiho suuqa u kaxeeya. iyagaa baranaysaa marka. iyaga ayaad si deebla u baranaysaa, si qoto dheer aad u baranaysaa. ta saddexaadna waxa weeye oo muhiimka ah
oo ah waddadii aa u mari lahayd inaad ka guulaysato suuqyada sarifka barashada wararka. Wararku waa kuwee marka? Wararku waa inaad haysato information ama warbixin ku saabsan lacagaha aad sarrifaysid. Lacagaha isku sarrifaysa adiga sarrif laa tahay. Lacagta yuurada iyo lacagta doolarka ayaad isku sarrifaysaa, isku kala beddelaysaa. Marka aad rabtid lacagaha inaad sarriftid waa inaad xog ka haysataa dhaqaalaha labada waddan ee lacagahan leh. Yurubiyankii waa inaad ka haysataa information kugu filan, xog kugu filan, newskooda, wararkooda, dhaqaalahooda meeshuu marayo, bangiyadooda xaaladahooda, xaaladda waxa weeye sicir bararka, xaaladda waxaasoo dhan shaqaale, xaaladda waxa weeye employmentiga shaqaalaha waddanka waa inaad information badan ka haysataa markaad lacagtooda ku trade garaynayso. Sidoo kale USD oo lacagta doolarka ama Mareykanka waa inaad xog dheeri ah ka haysataa, sababtoo ah way ku saameynaysaa. Marka aad suuqa xogtiisa aad fikrad guud soo qaadato, aad candlesticks iyo shumacyadan dhaqdhaqaaqaya cagaarka iyo casaanka waxay yihiin aad soo ogaato, waa inaad wararka fundamental ayaa loo yaqaanaa, fundamental analysis, waa inaad wararkana si xoog ah u daraasaysaa oo waqti aad gelisaa. maxay kaa saamaxayaan wararkana in aad ogaatid go'aan aad gaartid lacagta aad soo iibsanaysid iyo lacagta aad iska iibinaysid. Si aad go'aanka u gaadhid waa inaad wararka labada waddan aad garanaysaa. qodobka afraad oo ugu dambeeyey, baro inaad haysatid lacagtaada. Inaad lacagtaada haysatid waa inaad barataa. afar suuqii baad fikrad guud ka soo qaadatay, technical analysis baa soo baratay iyo shumacyada tan meesha ay u socdaan, fundamental analysis baa soo baratay iyo newski iyo wararkii dalalka dhaqaalahooda ayaa soo kala ogaatay. halkaa marka aad marayso intaa soo barato waxaad tahay trader suuqan lacag ka samayn kara. haddaba markaan ayaa waxaa bilaabmaya inaa adiga iyo suuqu legdantaan, inaa adiga iyo suuqu dagaalantaan, sababtoo ah suuqan wuxuu doonayaa inuu lacagtaada cuno, adiguna waxaad doonaysaa inaad lacagtiisa cuntid. haddaba inta aadan baran sida lacagta suuqa taalla aad ula soo baxdid oo u cuntid, waa inaad barataa lacagta aad adigu haysatid inaad ilaashato uusan suuqu kaa qaadan. sidee baa u ilaashanaysaa marka lacagtaada? yacni khasaare inaad ka taxadirtid oo aadan khasaarin oo lacagta aad suuqan la soo gashay aynan kaaga lumin. maxaa kuu fududaynaya inaad lacagtaada aad haysato? waxaa kuu fududaynaya qodobka koowaad, risk management. risk managementigu waxa weeye waa inaad ka taxadirtid lacagta aad suuqa la gelaysid iyo inaad iska hubisid trade-ka aad gelaysid. lacagta aad suuqa la gelaysid markaas oo aad halkaa trade dhiganaysid waa inaad ka taxadirtid oo ay noqotaa lacag haddii ay khasaarto aad ka maarmi kartid. tusaale ahaan, suuqa waxaa kuugu jirta ama brokerka waxaa kuugu jira $100. trade baa rabtaa inaad gashid. $100kaagaa $1 oo ka mid a ama 0.5 ka mid a waa inaad suuqii gelisaa. lacag ka badan haddii aad geliso micnaheedu waxaa weeye waa risk. 0.5 kaasaa haddii suuqa uu dhaqaaq fiican sameeyo ku faa'iidaysaa lacag fiican dhinaca forex-ka markaan eegno. haddii aan eegno dhinaca binary and digital optionna $100 oo kale $10 ama $5 baa ku gelaysaa. oo halka daqiiqo dhegeyso hadda waa 1 minute. markaan eegno binary and digital option $5 waxaa faa'iidaysaa $4 iyo filisyo. $10 waxaa faa'iidaysaa $8 ilaa $9 inta u dhaxaysa. waa hal daqiiqo keliya intaa samaynaysaa. dhinaca forex-ka markaan eegno 0.5 haddii aad ku gashid suuqa kan uu 100 biib kuu dhaqaaqo maxaa faa'iidaysaa? ilaa $500. 0.5 hadaa gasho ilaa $500 baa faa'iidaysaa. 0.05 hadaa ku gashidna waxaa faa'iidaysaa $50 ayaa faa'iidaysaa haddaa $100 ku gashid. marka saaxiib yaal suuqan waa lacag socoto weeye, laakiin yaa lacag ka qaban karaa? waxaa lacag ka qaban kara oo lacag ka faa'iidi kara oo dhaqaale macnale ka samayn kara qofka barta oo tallaabo u barta waxa aan sheegayo. haddaba waa inaad hubisid oo aad garanaysid lacagta aad suuqa la gelaysid iyo trade-ka aad qaadanaysid. labada lacagood aad isku sarrifaysid waa inay noqdaan laba lacagood oo aad technical ahaan si fiican u analyze garaysid. fundamental ahaan iyo dhaqaalaha labadaa waddan oo labadooda lacagood aad isku sarrifaysidna waa inaad si fiican u ogta. qodobka labaad aad lacagtaada ku ilaashanaysa waxa weeye patience waa dulqaad ama sugid.
patience-igu waa inaad dulqaad u lahaatid inta uu kuu diyaar garoobayo trade aad ka heshay trade aad suuqa ka heshay ama suuq diyaar kuwa aad rabtid inaad geshid inta uu kuu diyaar garoobayo waa inaad sugtaa confirmationskaaga oo dhan yacni waa inaad dulqaad u lahaatid inta uu kuu diyaar garoobayo trade aad ka heshid confirmationskaaga oo dhan trade aad confirmationskaaga iyo waxyaalaha aad ku xaqiijinayso suuqa oo dhan aad ka heshay inta uu kuu diyaar garoobayo waa inaad dulqaad lahaataa waa inaadan degdegin macnaha tusaale waxaa laga yaabaa 5 6 7 qodob inaad suuqa ku geshid oo confirmation ku ah oo suuqa 7 qodob markaa ka xaqiijisid oo 7 qodob ku waafaqaan in aad geshid patience la'aantu ama inaad patience-ga ka degdegtidna waxay noqonaysaa 7 qodob oo 6 ka mid ah ama 5 ka mid ah lagu waafaqay labana aad weli sugaysid inaad ka degdegtid oo 5ta ku geshid oo tiraahdid waa caadi labadaas dhib male ama waa caadi aad cudurdaar inaad samaysatid oo aad suuqi degdeg ku geshid ayaa waxa la dhahaa inaadan patience lahayn marka qodobka labaad ee lacagtaada aad ku haysanaysid ama aad ku ilaashanaysid waa inaad patience leedahay qodobka u dambeeya waa inaad discipline leedahay discipline-ku waxa weeye waa inaad xakameyn kartaa shucuurtaada faa'iido iyo khasaare hadba waxa aad kala kulantid suuqa waa inaad xakameyn kartaa shucuurtaada iyo dareenkaaga faa'iido iyo khasaare hadba waxa aad la kulantid maalintaada ama habeenkaaga marka aad reergareynayso haddii aad faa'iididna waa inaad shucuurtaada xakameyn kartaa haddii aad khasaartidna waa inaad shucuurtaada xakameyn kartaa tusaale suuqa galaysaa lacag baa faa'iidaysaa fiican baa maalintaa faa'iidaysaa marka aad faa'iido fiican heshid waa inaad iska hubisaa trade-ka labaad inta badan dadka degdega faa'iidada ayaa waxay ku qaadaa inay galaan trade kale oo degdega galaan ama iyagoo doonaya maalintii inay suuqa $100 ka qabtaan $100 marka uu helo oo gelinka horeba $100 helo maalin badanina ay u dhiman tahay waqti badan ay u harsan tahay ayuu xoranayaa trade kana gelaya suuqu khasaaraya $100 faa'iido oo suuqa kala noqonaya marka waa in go'aanka aad gaadhay iyo qorshaha u degsatay suuqa iyo faa'iidada aad maalintii ka doonaysid waa inaad ku ekaataa lacag kale waa inaad ka doonaysid suuqa way haddaba saaxiibayaal afartaa qodob oo aan idin faahfaahiyey ayaa suuqan lacag looga sameeyaa waddo kale oo la maro inaad si aad forex trader u noqotid ama binary and digital option trader u noqotid ma jirto waddadan kaliya la maraa waddadan bes alam qofka waddo kale kuu tilmaamo waxa weeye waddo qallooca weeye waddo khalada weeye waddada saxda u maraysid waddadan waaye in aad wax baratid inaad fikradood ka haysatid waxbarashadana noocyadeedu waa idin sheegay lacagtaada sida aad u haysanaysid oo ilaashanaysidna waa idin sheegay intaa kadib saaxiibayaal hadda bilow barashada iyo shaqada sarifka nala guulayso waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan maxaan sidaa kuu leeyahay yacni waqti kaama tegin waxaa laga yaabaa weli inaad dhallinyaro tahay weli wiil yar baa tahay weli gabar yar baa tahay cimri haddii ilaahay ku daayo cimri dheeraa kuu haray marka waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inay niyadaada ku jiraan oo rajooyin badan ay niyadaada ku jiraan aad isleedahay rumay haddaba naftaada waqti ha siinin haddii aad doonaysid inaad forex and binary and digital option ka gaartid guul just now waa inaad bilowdaa hadda waa inaad bilowdaa hadhihin waa usoo diyaar garoobayaa hadhihin computer ma haysto hadhihin mobile ma haysto waa inaad hadda bilowdaa waddada waa inaad martaa inaad socoto ama gaabi ama dheeray waa inay waddadu ku saxsanta waay annagu haddaba maxaana aniga idinla hadlayase maxaana anigu waxaan mas-uul ka ahay akaademiyad la yidhaahdo Somali Smart Money waxaa ku jira in ka badan 200 oo arday oo suuqan barta qaarkoodna barasho ku jira qaarkoodna barashadii dhameeyay oo lacag sameeyay maalinle ah kuwaasaan kugu soo dhaweynayaa marka akaademiyadaasaan kugu soo dhaweynayaa Somali Smart Money ayaan kugu soo dhaweynayaa way Somali Smart Money waxaan ka trade garaynaa IQ option annaga marka laba nooc ayuu u qaybsamaa tradingku qaybina waa forex qaybina waa binary and digital option annaga waxaan qaadanay marka binary and digital option ayaan qaadanay waxaana isticmaalnaa platformka loo yaqaano IQ option
waxaana lacag ku sameynaa 1 daqiiqo oo keliya waay maxaan ku dooranay marka IQ option IQ option laba qodob keliya ayaan ku doortay qodobka koowaad waxa weeye barashadeeda oo fudud way ka sahlan tahay forex-ka kale marka loo eego barashada IQ option qofkii fahma oo wadada saxda u mara way ka sahlan tahay forex-ka kale qodobka waa ku dooranay talabaadna waxa weeye lacag badnaan way ka faa'iido badan tahay forex-ka oo waxa laga yaabaa IQ option 1 daqiiqo marka lacag badan la gashid inaad lacag qeyr macquula aad heshid oo waa aragteen live trading-ka ardayda la socota channel-ka marka aan sameynayno lacagaha aan ka faa'iidno way ka faa'iido badan tahay forex-ka kale marka saaxiibayaal gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynayaa lacagta ugu yar ee la maal gashado binary and digital option marka aad joogtid ama IQ option waa $10 laakiin forex waa imisa $100 ama $200 ilaa $500 baa ugu yar brokerada laakiin IQ option waxa maal gashan kartaa $10 oo kaliya haddaba maanta haddii dhaqaalahaaga hadda uu yahay $10 oo aad soo gashid akaademiyada Somali Smart Money oo teamkeena ka mid noqotid oo casharada aan bixinayno aan qaadatid marka aad maal gashato IQ option cilmigana aad baratid 100% waxaan hubnaa inaad guuleysanaysid cilmiga marka aad baratid oo si fiican u baratid sidoo kale aad maal gashato platformka IQ option 100% maxaan hubnaa inaad guuleysanaysid waayo column-ka u dambeeyay waxaan idinku soo qoray $2,000 bil kadib yacni qofkaagii $10 haystay bisha horaanteedii 2 bil kadib waxa sameyn kartaa haddii maskaxdaadu furan tahay $2,000 iyo lacag ka badanba sababtoo waa aragteen ardaydeena YouTube-ka daawata macallimiin yacni hal 10 daqiiqo gudahood ilaa 15 daqiiqo gudahood $10 ku gaarsiinaya $2,000 marka waa in maskaxdaadu furan tahay waa inaad aaminsan tahay adduunyadu inay tagtay oo ay suuragal tahay maanta in online lacagta inta laga sameeyo in broker laga shaqeysto in binary and digital option laga shaqeysto in dhul aadan adiga joogin xitaa aad ka shaqeyn karto in website iyo lacag laga sameeyo waa inaad aaminsan tahay sababtoo adduunyadii taqliidiga ahayd ee tan ka horeysay waa ka nimi 2022 ayaan sii soconaa haddii aad marka 2022 la socon weydid adiga iyo waqtigu waa kala haraysaa oo waxaad aaminsanaanaysaa weli in loo taagnaado $300 $400 $500 ilaa $1,000 bil in waqtigaaga oo dhan ay laasato cimrigaaga oo dhan ay cunto xisaabtan uu ku daba joogo shaqadaada laga cayriyo marmarka qaar aad ka baqdid in shaqada laga fasaxo xitaa haddaad dan muhiim ah leedahay aadan shaqada ka tagi karin laakiin tan xor baa tahay waqtigaaga xor baa u tahay lacagtaada xor baa u tahay waqtigaad doontaa trade garan kartaa meeshaad doontaa u safri kartaa adduunyada lacag qeyr macquul ana waa sameyn kartaa marka saaxiibayaal guusha ay dad badani gaareen adigana waa gaari kartaa cid kaa xigtan ma jirto waad u qalantaa guusha 100% soo dhawaada saaxiibayaal linkiga description-ka akaademiyada Somali Smart Money group-keena public ah wuxuu yaalaa description-ka video-gan hoostiisa ku dhufo kana mid noqo ku soo bir Telegram-keena la soco casharada maalinlaha aan halkaas soo gelino sidoo kale qofkii raba su'aalo gaar ah inuu weydiiyo lambarkayga WhatsApp-ka wuxuu yaalaa description-ka igala soo xiriir sidoo kale waa mahadsantiin saaxiibayaal channel-ka subscribe saara casharro badan oo faa'iido badan ayaan soo gelin doonaa dhalinyaradeena la marin habaabiyena waxaan u sheegi doonaa wadada saxda iyo sirta tooska ee suuqan lacagta looga sameeyo marka channel-keena subscribe saarta gambaleelka furta sidoo kale video-gan like inoo saara inoona share gareeya waa mahadsantihiin casharka xiga ayaa noo balana dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu